السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. waxaan halka ka salaamayaa dhammaan ummadda ka soo jeeda gobollada Awdal States. waxaad iga guddoontaan salaan qaali ah. waxaan halkan u soo fadhiistay maanta inaan ka yara hadlo arrimo khuseeya danaha dadka reer Awdal. Awdal waa gobollada Gabiley iyo Awdal, Saylac ilaa Lughaya. dadka dhulka degan ayaa aan odhanaynaa waa dadkii reer Awdal weyn. walaalayaal, sidaynu ognahayba waxa weeyaan dadka dhulka degani waa dad waqtigan maanta aynu joogno ay arrimo aad dib uga haya oo fara badani ay ku habsadeen. sidaynu ognahay yani siyaasiyan iyo iqtiyaasadiyan, siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan labadaba, waxaynu ognahay inay haba yaraatee dareemeen il ama ilays ama relief intii howlwadeennada Awdal States ay ku dhawaaqeen ismaamul goboleedka Awdal State, kaasoo hadda aan u baahnayn inaan dib ugu noqdo wixii keenay. qof kasta oo reer Awdalina uu ogyahay wixii keenay ama sababihii loo abuuray dhaqdhaqaaqa Awdal State. walaalayaal, hawshii loo abuuray weli maynaan gaadhin cagadhigashadeedii ama goolkii ugu weynaa lama gaadhin. waxyaabo badan oo aynu aragnay oo ay qabatay oo dadweynaha reer Awdal faa'iidooyin badan u keenay way jiraan, laakiin haddana weli lama gaadhin dantii ugu muhiimsanayd ee laga lahaa abuuritaankii dhaqdhaqaaqa Awdal State. marka shacabka reer Awdal ha yaraadaan hase weynaadaan, aqoon-yahankooda, mutacalimkooda, hooyooyinkooda, gabdhahooda, waxaa looga baahan yahay inay gacmaha isqabsadaan oo ay wax kasta oo kaleba iloobaan oo ay ku tala galaan sidii ay ku gaadhi lahaayeen goolkooda ama waxa ay higsanayaan. waxay jirtay sidaynu ognahayba ummadaha ama dadka Soomaalidu ilaahay qabaa'il buu ka dhigay. intii aanay imanin dowladihii reer galbeedka ahaa ee dadka u sameeyey xuduudaha ee kala qaybqaybiyey ka hor, qabaa'ilku waxay u noolaan jireen si nabadgelya. wax way dhici jireen oo dagaallo way dhici jireen, laakiin waxay lahaan jireen sida loo xalilo, oo ummad walba waxay lahayd cid hoggaan u ah oo u hadasha ama u dooda. haddii cid lagu xadgudbo, cid u dooda ayay lahaayeen. sidaynu ognahay, dadku marka ay deegaanadu waxay la mid ahaayeen sida biyaha roobka iyo biyaha baddu ayna isku dhex gelin. waxaad ogtihiin biyaha roobku marka ay da-aan ee ay badda galaan, markiiba biyaha roobku ma dhex galaan badda. waxaad arkaysaa midabkii biyihii roobka ee macaanaa oo caddaan ama casaan ah iyo biyihii badda oo bluya. mudday ku qaadataa in ay kala saafiyoobaan. taasi waxay u dhigantaa laba qabiil oo isdhinac degaa daaqsin bay wadaagi jireen, way isdhexgeli jireen, laakiin xad ama heer baa jiray uuna dhaafi jirin qabiilka daaqsinta ku yimaadaa. kabacdina daaqsintu markay dhammaato, sidaa biyuhu u kala miirmayaan bay u kala miirmayeen oo ay kala baxayeen. masalan haddaan soo qaato reer ciise ah oo degan raasaha Jabuuti, hadduu daaqsin u yimaado dhulka Soomaalida ama dhulka gobollada Awdal, hadduu daaqsin u yimaado, dee ma soo dhaafi jirin
لو يعدي اريديس او ما يمن جرين بورما daaqsintiisa markuu dhamaysto low yacdu ka noqonayo marka saasay u lahayd xad ayna dhaafin xoolaha daaqsinta ku yimaada oo wax weyn neefkaasi ka yimiday raasaha Jabuuti ma gaari jirin bowrama intii uu daaqsata u yimiday waxa ahayd in aka xuduudu ku ekaan jiray xad baa jira heer baa jira ay ku kala noqdaan maanta taasi ma jirto maanta waxa socota in baadil u batay oo dabalaarsi aan yacna lahayn u dhuumasho aan lahayn badheer ah in maanta ay socdaan taasina waxaan ognahay gobollada outer states barigana way kaga socotaa galbeedkana way kaga socotaa marka iminka waxay u muuqataa outer states waxay la mid noqotay shamac hareeraha dab lagaga shiday oo shrinking ururaya dhinacyadu ka gubanaya shamicii kadibna de waa u baabi haddaba dadka reer awdal maanta arrimahan hadday ka tashan waayaan socda waxay u muuqataa mustaqbalka in ay ku dhici doonto dhul la-aan in taariikhda lagaga sheekayn doono dad gadabuursiya oo reer awdal ayaa degi jiray dhulkaas marka taasi waxa weeyaan walaalahayo waa aniga waxa ii muuqdo weeyi haddaynu nahay ummadda dhulkaasi ku nool ee reer awdal la yidhaahdo khaasatan ummadda gadabuursi waa in ay waxyaabaha maanta socda ee galbeedkana ka socda barigana ka socda waa inay ka tabaabulshaystaan waa in ay danahooda ka tashadaan oo ay loobaan waxaan lagu mashquuliyey ee iyaga dhexdoodii maaragtay la dhex dhigay kubadda waxaa kaloon ku darsanaya intaas waxaan leeyahay walaalkay Axmed Ismaaciil Samatar Professor Axmed Ismaaciil Samatar waa aqoonyahan reer awdal ah laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa quraan joy ku quuso waxa weeyaan ninka raggii ama qofka bini aadankii marka uu dadkiisa wax ka noqdo ayuu meel kalena wax ka noqdaa sida aan la wada socono maanta doorashooyinkii ka dhacay magaala madaxda Muqdisho maanta oo bishu tahay bishii 9aad 10keedii 2012 Axmed Ismaaciil Samatar Professor Axmed Ismaaciil Samatar wuxuu isku soo taagay oo u orday in uu ka noqdo madaxweyne Soomaaliyeed waxaan ognahay cadka uu halka maanta ka helay cadka uu ka helay waxa weeyaan waa cadkii 8 nin ee walaalihii ahaa 8 nin ee gadabuursi ee baarlamaanka ku jiray codkoodii buu helay isaga ku sagaalaha taasi markaa maanta waxay u noqonaysaa waan u maleynayaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar lesson 10 bay u noqonaysaa waayo aniga waxa la yiraahdaa Mahdi Muuse Isaaq baa la yiraahdaa waxaan anigu u soo joogo markhaati ka ahaa walaalkay Axmed Ismaaciil Samatar in aan maalin maalmaha ka mid ah markii uu tabaabulshaha ku jiray inuu u ordo madaxtinimada Soomaaliya ayaa waxaan ku yidhi annagoo meel ku doodayna isagoo inkirsanaa waxa la yiraahdaa outer state oo xataa caayay oo cambaareeyay waxaan ku yidhi anigu shakhsiyan Axmed Ismaaciil Samatar Professor Axmed Ismaaciil Samatar annaga ay nagama geydid waxa tahay nin walaalkaya nin aqoonyahana haddii maanta Soomaali aad wax ka noqotana oo wanaag samaysana waxa la odhan nin samaroon ama nin gadabuursiya ayaa waxa sameeyay wanaagga sameeyay haddaad xumaan samaysana nin gadabuursiya xumaanta sameeyay baa la odhan marka waan kula qabnaa xumaan iyo samaan wixii aad la timaado waan kula leenahay magac ahaan sida daraadeed annagu waan ku taageeraynaa magac baan kugu taageeraynaa laakiin kaama geyno haddaan nahay dadkaagii reer awdal haddaan nahay cay kaama geyno waxaa kaloo nagu daray intaas Axmedow waxa weeyaan ninka raggii ama qofka bini aadankii haddii uu xiniye lala garab joogin xiniyihiisu wax ma tara ninku wuxuu noqdaa nin marka xiniye lala garab joogo ma taqaanaa rag daba joogaan wuxuu ku jawaabay Axmed Ismaaciil Samatar anuu xiniyahayga waan wataa ana taas waxa weeyaan annagu haddaa tihiin gadabuursi anuu danid kama liibayaan laakiin maanta Axmed Ismaaciil Samatar waxaan ugu hambalyeynaa inuu gartayna qiimaha uu leeyahay dadkiisu ama tolkiisu ay leeyihiin marka waxaan leenahay Axmed Ismaaciilow
maanta laba ayaa mid kuu gudboon inaad noqoto SNM iyo inaad noqoto Awdal State labadaasaa kuu gudboon haddii ilaahay yidhaahdo waxaana ilaahay ka baryaynaa inuu cashir kuu noqon doonto arrintaasi oo aad howlwadeen ka noqon doonto ood horkici doonto dadkaaga annaga ayaa diyaar ku ah inaad noo noqoto madaxweyne annaga ayaa diyaar ku ah inaad aqoontaada nooga faa'iidayso annaga ayaa diyaar ku ah inaan ku dabagallo annaga ayaa diyaar ku ah inaan ku ammaano marka waxaan ku leenahay Axmed Ismaaciil Samatar walaalkayow soo dhawow Awdal State-na ku soo dhawow wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh